للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقفك مسلم كائن وقف الله سبحانه وتعالى كعبصده إلهي وهو كانتنا أتون دبوا النقطة الله كعبسكنا وحويا المركع علماء قيحيا وحويا وحي إلهي وكفري وأضلت معه وحيو كاره بين أتحده هذا الله كعبس الليلة. إلهي وحده سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كوي علي النبي هميو إلهي كعبصده عبسده إلهي حق أولي هاي أنا دمانين إذنكو إلهي وهو كانتن مويان هذا كوي علي النبي هميو إلهي كعبصده يدو إيمان لو قرأي أي هذا إلهي وحليه إلهي كعبصده قف بسوء إيمان له أي وحيالا بدن كسي نقونيا marka isagoo iimaan leh oo ilaahay iyo rasuul ba rumaysan ayaa hadana la doonayaa inuu alla ka cabsiga ku dabranaado. ilaahay ka cabsada hana dhimanina idinkoo alla u hoggaansan mooyaan. oo sidee noqonaysaa marka qofka inuu la yiraahdo ha dhimanin adigoo ilaahay u hoggaansan mooyaan? macnaheedu waxa weeye habeen iyo maalinba ilaahay ka cabso. haddaad gurigaaga joogto ilaahay ka cabso, haddaad dad la joogto ilaahay ka cabso. qofku hadduu awqaadiisa oo dhan ilaahay ka cabsado geeridu goorma u imanaysa ama habeen ama maalin waxay adoo ilaahay ku xidhan oo ilaahay ka cabsanayo inta ku imanaysa sidaa weeye walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. waxaana noqonaysaa markaas aayaddaa waxaa sii caddaynaysaa aayadda kale ilaahay u leeyahay fattaqu llaha ma stadactum. ilaahay ka cabsada inta kartaan, inta aad karto ee karaankaaga ahun baa lagu leeyahy waxba ha karane. awqaadaada oo dhanna ilaahay ka cabso markaasaad fulinaysaa amarkaas. markaad awqaadaada oo dhan ilaahay ka cabsato karaankaagana aan waxba ka hakran. dadku isku awood maaha, isku karaan maaha, laakiin qof walba maxaa lagu adoonsaday inta karaankiisa fattaqu llaha ma stadactum. oo aayad kale waxay leedahay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha. nafna lama saarin waxay karaysa mooyaane. oo marka horeba ilaahay wuxuu nagu adoonsaday ee waajibaadka ah ayaa waxay yihiin waxaynu karayno. salaada waa waxaynu karayno, soonka waa waxaynu karayno, xajka waa waxaynu karayno, zakada waa waxaynu karayno. waxa weeyaan dee waa shay aynaan karaynin marka horeba ilaahay naguma adoonsan. waxa ilaahay nagu adoonsaday waxa weeyaan waa waxaynu karayno. nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ittaqu llaha ma stadactum. اتقوا الله حيث ما كنتم. إلهي كعب صدا ميلك السؤال شوكتان، ميلك السؤال شوكتان إلهي كعب صدا. أو هداد كل جاجة شوكته يا هداد مساجد شوكته يا هداد ظل شوكته بدول بإلهي كعب صدا. وحلا جاي ودت قاربا مركا يدت ثلاث شوكان لقي أباينا في الشوضان أو السرويان أو لكن مركا عدة شوكان أما مركا السوق الشوكان ama marka meel wax lagu hayo ay joogaan laga yaabo inay nooc kala noqdaan. oo marka masaajid joogto ilaahay ka cabso oo ilaahay ku xidhnow, gurigaaga haddaad joogto ilaahay ka cabso oo ku xidhnow, haddaad meel suuqa joogto ama ummad aad la joogto ilaahay ka cabso mar walba. haddaad waddan gaalo joogto iyo haddaad waddan islaam joogto labadaba ilaahay ka cabso. oo soomaalida waxay idhahdaan haddii meel lagu ilaayahay ishaa la iska ridaa. macnaa waxa weeyaan meel aan islaamba lagu haynin haddaad tagto waa laba mid noqdaa bay leeyihin. taa lama doonayo. waxa weeyaan meel kastoo joogto ilaahay ka cabso. haddaba marku qofku ilaahay ka cabsado adduunya aakhiraba wuu liibaanaya. intaan aakhiraba la gaadhin buu adduunyadii liibaanaya. ilahay baa wuxuhi subxaana watacaala waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. qofka ilaahay ka cabsada ilaahay makhraj buu siinaya. dhibaato kasta oo ku dhacda, cidhiidhi kasta oo ku dhaca, ilaahay makhraj iyo meel uu qofku siinaya. wuxuu ka arsaaqayaa wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. wuxuu ka arsaaqayaa meelaan u filaynin. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. qofka ilaahay kala saartay ilaahay saa ku filan. ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa
ayada ilahay wuxuu noogu tilmaamaya haddaynu fulino inaynu adduunya iyo aakhiraba liimaanayno qofka ilaahay ka cabsada wuxuu siinayaa makraj makrajku waa maxay ciriiri kasta ilahay uu ka saaraya hadday tahay mid maaragtay colaadeed iyo boqof hadday tahay mid usaaradeed iyo hanti la-aan hadday tahay mid ubad la-aan hadday tahay mid dhibaato kale oo mid caafimaad waxa weeyaan dhibaato kasta oo haysata ilahay uu ka saaraya makraj uu kaga baxa ilahay siinaya ciriiri kasta ilahay uu ka saaraya wuxuu ka arsaaqayaa meel aan filaynin maanta adduunyadan aynu joogno laba arrimood baa la isku haysta waxa weeyaan wax la cuno iyo sidii loo nabadgeli lahaa wax la cuno iyo nabadgeli waxaa qaxoonsi iyo wax yaacaya ee badda isku guraya ee meel walba ku dhimanaya waa shilin bay raadinaya shilinkii baa ilahay kuu siinaya barta ku nooshay maanta dadki waxa weeyaan waa mid la bukaasaya iyo mid wax bukaasaya kii la bukaasaya ilaahay baa ka saaraya hadduu ilahay ba hogaansamo maanta wadiga arkaya wax kasta waxa la isku haystaa waxa weeyaan mid naftiisii baa lagu haystaa mid dhulkiisii baa lagu haystaa mid diintiisii baa lagu haystaa mid waxa la waxaas oo dhan ee wada haysta ee ciriiriga ilaahay baa ka saaraya qofka hadduu ilaahay ku xidhmo hadduu ilaahay ku hogaansamo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofka ilaahay kala saartay arrimihiisa u dhiibta ilahay isagaa ku filan waxaa dhacda marka waxay dhacaan in dadku ay yidhaahdaan hay-ado hala noo soo gudmado dawladaha waaweyn xaggeen u yaacnaa laakiin ummadda hadday xagga ilaahay u carabto fafiru ila allah hadday xagga ilaahay u yaacdo hadday ilaahay ku xidhanto way liibaanaysaa maxaa yeelay cid alla cid kale oo wax u tari karaysaa oo aan alla ahayni ma jiro abaarta ilaahay baa kaa saaraya colaadda ilaahay baa kaa saaraya caafimaad xumada ilaahay baa kaa saaraya wax alla wixii aad u baahan tahay ilahay baa ayaa gacantiisa ku haya ilahay subxana watacaala fadligiisu wuu badan yahay saa darteed ilahay subxana watacala deeqdiisu way ballaarhantay ilahay baa ku siinaya laakin maxaa loo baahan yahay inaad ilahay arrimahaaga u dhiibato inaad ilaahay ku kalsoonaato qofku wuxuu kalsooni dhaba leeyahay iyo taqwo dhaba marka uu kaga kalsoonaado waxa jeefkiisa ku jira waxa ilaahay xaggiisa ku maqan markuu kaga kalsoonaado laakiin marka tidhaahdo ilaa isha lai saaro dee kalsooni ma haysto de taasi waxay tilmaamaysaa in iimaankaagu aanu dhamaystirnay laakiin maxaa loo baahan yahay inaad ku kalsoonaato ilaahay sidaad ugu kalsoon tahay waxaad adigu jeefkaaga ku jira ee inaad la soo baxdo intaad la soo baxdo dabeedna aad isticmaasho intaasuna ay kaa xigto waa inaad waxa ilaahay subxana watacaala ku maqanaa sidaa ugu kalsoonaato wey haddii walaalayaal ilaahay aynu ka cabsano oo qofku ilaahay subxana watacaala ku xidhnaado addoon dhaba uu noqdo adduunya aakhiraba uu liibaanaya adduunya iyo aakhiraba wuu liibaanaya laakiin qofku haddaanu ilaahay ku xidhnayn oo aanu ilaahay addoon dhaba u ahayn oo waajibaadkii ilaahay ila marka lagu leeyahay ilaahay ka cabso waxa weeyaan wixii uu ku farayna la kaale oo salaadii iyo soonkii iyo xajkii zakadii wixii ilaahay subxaana watacaala uu kugu adoonsaday ee waajibaadka ahay arkaan islaamkii la kaale wixii uu kaa reebana ka har oo sinadii iyo dilkii iyo dhacii iyo haddayna xaaraantii ribadii waxla wixii ilaahay uu kuu diiday oo dhanna ka fogow markaasaad ayaad noqonaysaa qof ilaahay subxana watacaala ka cabsaday markaasaad noqonaysa waa addoon dhaba waxa keliya aad badan laynoo keenay wax kala maa ilaahay subxaana watacaala jin iyo insiba waxa u abuuray waxa weeyaan waa inay caabudaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ilahay wuxuu leeyahy jin iyo insi umaan abuurin inay caabudaan mooyaane in caalamkan ay isku roorsadaan looma abuurin oo ay isku dilaan oo ay isku dhacaan oo isku faanaan oo ismariyaan taa looma keenin maxaa loo keenay dhulku wuu ku filan yahay asaaqada taallana ilaahay baa u qoray maalintii uurka hooyadiisa oo ku jiraa loo qoray waxa loogu talagalay inuu ku cibaadaysto ilaahay lagu caabudo dabadeedna dhulkaa ilaahayna lagu noolaado qof walibana qofka kale uu nabadgeliyo walaalayaal kelmadeenu maanta intaas
أيها كسوكوبيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.